الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي كوبي اللحدانات هي كتاب كيني حكم وفوائد من روائع الإمام ابن القيم رحمه الله. الزهد القلبي هل كان شيخ وحكوشي يا حكمة حوان لوغا دغاي زهدiga la rabay waake qofku la xalira inuu zaahid uu noqdo ليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهي في قلبك. wuxuu ibnu qayim zaahidnimadu ma aha. zaahid waa qof adduunyada iskaga jeedsaday, marka micnaheedu ma aha inaad adduunyada ka tagto iyada oo aad qalbigaaga kasii dayso gacmahaaga iyadoo qalbiga kugu jirta. jacaylkii adduunye qalbigu kugu jiraa, marka inaad gacmahaagii ka dayso oo tiraahda adduunyo ma rabo ka shaqayn maayo oo kan maxay, laakiin jacaylkii qalbigu kugu jiraay sidaasi zuhdi ma aha. inama zuhdu an tatrukahaa, zuhdigu waa inaad qalbigaaga ka zuuliso min qalbika wahiya fii yadik, iyada oo gacmahaaga ku jirta, laakiin waa inaynan qalbiga kugu jirin. waxaa la yidhaahdaa ilaahayow yeel adduunyada, allaahuma ajcal idunyaa fii aydiina, ilaahayow gacmaha yaga yeelo, walaa tajcalha fii quluubina, ilaahayow qalbiga ha noo gelin. qalbiga haddii lagu geliyo bimacnaa waxay noqoni jacaylkeedu inuu kaa celiyo xaqa iyo wanaagga inaad ku bixiso, meel wanaagsan oo dhan inaad ku bixiso ayuu kuu diidayaa. zake ma bixin kartid, oo sadaqa ma bixin kartid, oo qaraabo wax ma siin kartid, oo masaakiin wax ma siin kartid. maxaa jira? qalbigu ayuu jacaylkeedu kugu jiraa. soomaalida waxay odhan jireen waxyaabaha nin geel badnaa oo layidhi geela zakada ka bixi, markii lasoo dareeriyay dhowr qaalmood oo dee aada u qurqurux badan oo geela ay reer dadku jecel yihiin ah, ayaa intuu saa u fiiriyay baa wuxuu yihi iska sii daaya, hadday rabo cadaabka ha igu dultumata aniga iska daaya buu ku yidhi. marka macluumadan aan aqrinayno sheekhu wuxuu ku sheegay kitaabkiisii طariiqu lhijratayni wa baabu sacaadatayn. ayib, haddaba adduunyadaas nin shaacir ahaa abulcataahiya baa waxaa ka mid ah ereyada uu yidhi ku cabiray adalla alxirsu acnaaqa arijaali, yani habi dunya tusaaqu ilayka cafwan alaysa masiiru dalika ila azawaali. waxa la yidhaahdo xirsiga adduunyada iyo dadaalkeedu rag waa midka dullaysa wey. dadka waxa dulleeyaay waa adduunyo jacaylkeeda oo meel walba ku istaajinayo oo su-aal kugu keenayo oo inaad maanta o dhan qofku gacanta u hoorsado, oo waa adduunya jacayl, isagoo laga yaabo xitaa inuusan markaa dhibaata u geynin dadka qaarkood oo waxoodii badse ay isleeyihiin. wuxuu yihi bal kaba dhig in adduunyo oo dhan gacantaada la geliyay. boqorada aynu maanta aragnay iyo kuwan waxyaabaha guryaha qusuurta la dhisanayo, yacni inayba adduunyada halkaa kasoo qaad. alaysa masiiru daaka ila zawaali, miyayna waxaas oo dhan u dambeynta waxuun tirtirmaya ahayn? miyaadan ka dhexdhaqaajinaynin? miyaada laba maro oo cadcad, laba goo cadcad miyaan lagugu xidhaynin ooda halkaa uga tegaynin? famaa tarjuu bishayin laysa yabqaa. haddaba waxyaaba aan dee joogaynin inuu qofku isku mashquuliyo muhim ma aha, waqti dhowna waa ku dhaafayaa. sheikhulislaam ibnu taymiya raximahullah zuhdiga isagoo ka hadlaya baa wuxuu azuhdu huwa tarku maa laa yanfacuka fi laakhira. zuhdiga waxaa la yidhaahdaa, haddaad tiraahdo maxaa zuhdi laga wadaa, muxuu yahay? waxaa weeye tarku maa laa yanfacuka fi laakhira, waxaan aakhara ku anfacaynin inaad iska dayso. aakharo waxa hadda waqtiga naga dhumiyey mayna anfacayaa? game la gala iyo musalsal la fiirsada iyo facebook saacado badan lagu dhumiye iyo fulaan la fiirsaday, waxaas adduunka maanta ad aragta ee waqtigu ku dhumay aakhara ma ku anfici? waa su-aal. maya, kuma anfacaya soo maaha, iska daa. zuhdi sidaasaa la yidhaahdaa. xanta iyo isku dirka iyo xumaanta ummad wax ka sheegeed aakhara ma waxbuu kuu tari mise wuu ku dhibi? waxba kuu tari maayo soo maaha, iska daa. marka zuhdi waxaa la yidhaahdaa waxaan aakhara wax kuu taraynin oo la iska daaya baa la yidhaahdaa. ayib, afdalu lmakaasib. ibnu qayim mar labaad wuxuu ka hadlayaa kasab, waxyaabaha la shaqaysto maxaa ugu fiican. wax la shaqaysto maxaa ugu fiican? afdalu maktasabathu nufuus, wax ay naftu kasbato waxa ugu fiican
oo qalbiguna uu xasiliyo uu helo waxa ugu fiican, addoonkuna alrifca fi dunya waalaakhira darajo sare uu ku hela adduun iyo aakhiraba, huwa alcilmu waaliimaan wey, waa cilmi iyo iimaan. cilmiga iyo iimaanka wax la kasbado oo la helo, ilaahay baa subxaanahu watacaala bixiyo asal ahaan, waana la siyaadsadaa oo qofku wuu bartaa, oo cilmiga waa in la barto oo loo istaago, iimaanka naftiisa in la cusboonaysiiyo oo lasii kor loo sii qaado. aliimaanu yanqusu bilmacaasi, yaziidu biaacati wayanqusu bilmacaasi. walihaada sidaas daraaddeed buu ilaahay wuxuu xidhiidhiyey mar walba labadaa shay. waqaala aladiina uutuu lcilma waaliimaana laqad labithtum fi kitaab illahi ilaa yowmi albacth. uutuu lcilma waaliimaan, dadkii la siiyey cilmiga iyo iimaanka. yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat. marka labada shay way isla socdaan, bilcilmi waaliimaan. cilmiga iyo iimaankiibaa alsacaadatu waalrifca lagu helaa. sacaada oo reereyn iyo rifco oo meel sare ah, labadaa shay baa lagu gaadhaa. ilaahay subxaanahu watacaala haynoo siyaadiye cilmi in sha allahu tacaala. ilaahina allahuma inaa nasaluka cilman naafican warisqan طayiban wacamalan mutaqabala. wabaarak allah fiikum.